ilaa iyo 6 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax miino oo lala beegsaday kolonyo galbinaysa baabuur u socotay garoonka Beledweyne. Warar aanu ka helnay hay'ado dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in askarta dhimatay ay la socdeen baabuur korka ka furan waxaana uu marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Afgoy iyo Ceel Walaweyn. Dhinaca kale, qarax ayaa goor hore oo maanta ah lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya oo marayay deegaanka Ceelasha Biyaha. Qaraxa ayaa lala helay baabuur uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareegto dhinaca amniga ah. Sarkaalka saarnaa baabuurka iyo 3 askari oo kale ayaa la sheegay inay dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray qaraxaasi. Qaraxyada lala beegsanayo ciidamada dowladda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa bilooyinkii dambe sii kordhayay kuwaasoo inta badan ka dhaca koonfurta Soomaaliya